qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo beeysatada gobolka Sanaag oo kulan balaaran maanta ku yeeshay hotel Sanaag ee magaalada Ceergaabo ayaa ugu horreyn eedeymo u soo jeediyay taliyaha booliska Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland way sheegeen inay ka hor istaageen mashaariic horumarineed oo shirkadda Aslimeed u waday gobolka Sanaag kuwaas oo ay ka mid ahaayeen cusbitaal caalami oo dhawaan laga dhagax dhigay magaalada Ceergaabo waxaana madax dhaqameedkan iyo odayaashan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen inuu arrimahaasi wax ka qabto iyagoo sheegay shirkadda Aslimeed tahay shirkadda kaliya ee beeyada ka ganacsata isla markaasina horumarin iyo maalgelin u sameeyay beeysatada gobolka Sanaag sidoo kalena ka qayb qaadata arrimaha samafalka ee gobolkani geedkeena in la soo taago inaku doormin geedkeena wixii loo wado oo mashaariic ah oo laga hortaagan yahay waanu eesaynayna cid ka hortaagan geedkeena hadeerto maalintii dhowaan markaa cadaanka arkay oo wareystay waxay ka siitay wasiirka ganacsiga warqad waxay ka siitay wasiirka amniga oo in ninka la yiraahdo ina kaahin warqad inay tagi karaan gobolka Sanaag iyo degmada Saaxib waxa ay ku soo arkaan iyo waxa u sidaan u geeyay dawladana waxay qabanayaan ay u sheegeen ugu weeyahay cusbitaalka gobolka Sanaag laga qabanayo degmada Ceergaabo laga qabanayo oo ah magaalada Kooriyeed oo maantii dhaweyd barasaabku iyo maayirku ay dhagax dhigeen dhamaan inta wala sortaag waxaan leenahay sortaaga ha laga daayo gobolka awalba waa gobolka waa loo mususuqay wax la oran jiray gobolka Sanaag hay'adaha waa laga hortaagay way samuuqatay laga hortaagay gobolka Sanaag waa ganacsiga faleenka soo baxday shirkadda Aslimeed la yiraahdo baahada xoolaha laga sameeyo samaysay maalgelin la siisay aan doonayay ku hore u wado dawladuna la wado shirkadii waa lagu soo taagay gobol ahaan baa loo xiriiriyaa ragay hargeysa oo ganacsatada xiriiriyaya shaqo badan oo laga lahaa isbitaal ka mid yihiin iskuulada yar ka mid yihiin oo dadka dhirta leh ganacsiga ku nool caruurahooda iyo midiyooda iyo dhulka deegaankooda ku badan looga dhisi lahaa jamhuuriyadda dimuqraadiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayna oo la socodsiinayna in shirkadda Aslimeed in la soo taagay baanu u sheegayna waxaanu leenahay dadka waxay ku noolaayeen xoolaha iyo beeyada xoolihii abaar baa heshay way dhamaadeen waxa uu soo haray beeyada way maanta ku noolaayeen beeyadii hadii isbaaro loo dhigtay oo la yiri jaranka booliska ina fadal iimaan iyo wasiir ku-xigeenka ayaa u dhigtay isbaaro dadkan maxaa markaa dawladda ugu tala gashay nin kasta oo wadalkiisa maal gashanaya ama dalkiisa doonaya inuu wax geliyo in lagu taageero xaq u leeyahay waxaanu taageersanahay wax qabadka iyo maalgelinta shirkadaha maxalliga ah ee Aslimeed ku jirto in la soo taago oo hortaag lagu sameeyana waxaanu aragnaa in sharci darro tahay oo hadda la sheegay in taliyaha ciidanka booliska wasiir ku-xigeenka amniga ee arrimaha gudaha waxaana kiiskaas hadduu iyaga ku cadaado oo kiis fuula noqdo waxaan madaxweynaha uga dacwoonaynaa madaxweynuhu inuu tallaabo sharci ka qaado way cidii horumar wada runtii waa taageeraynaa oo in la soo taagana ma rabno wadaniyiin ah dalka wuxuu qabanaysa in la soo taago ma aha Aslimeed hal taageeraan leenahay hadda wax nagu soo baxay dadka majabad baa la rabaa hay'adii nimankii wasiirada ahaa iyo taliyii bilayska baa nimankii ahaa Aslimeed ee wax siin jiray dadka caynkaas ah ka joogsaday taana ka qabto wala la ka soo gaadho adoonka markay arkeen lagu la kacayo shirkadaha maalgashiga wada sida Aslimeed oo faragelin baahsan lagu hayo shakhsiyaha halka u dhashay iyo kuwa galbeed jooga oo wasiiro ku-xigeenna leh sida ina Muuse Diiriye ninkan sareeyagaas ina fadal iimaan ka dawladda ay faragelin weyn ku hayaan Barqad Maxamuud Geedi Bulsha TV wararka gobolka Sanaag.